السلام الله عليكم أخيارتنا لا صعوتا ميل كستوا دونيدا كجوكتان كسو دواد تمينية تحليل كلا أو كاميدا وراركا قوة وين حلقان كتاقان قبل كباريغا دحي وتضوي لباتنكا بشا جولاي سندكا لباكون لحي لباتن قضبادا أينو كدول ماريدونو وقتيغان قدهان با حالات قبل كباريغا دحي يقنقاقيدا كسعونا يا دون كلا وحا كاميدا golaha sare ee amniga qaranka wadanka Iran iyo waliba laanta ammaanka u qaabilsan baarlamaanka wadanka ee ka tirsan xubnaha xildhibaanada ah ayaa waxa ay war ka soo saareen weerarka Ukraine ay ku qaaday mid kamid ah maraakiibta dagaalka ee maraakiibta ganacsiga ee wadanka Iran. baarlamaanka wadanka Iran waxa uu yiri xisaab ayaa ka dambeynaysa tilaabooyinka ay qaadeen dowladda Kiev iyo madaxweyne Zelensky. dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa ay ku dhawaaqday in Mareykanka uusan ahayn cidda go'aamin doonta maalinna dagaalka in la joojiyo mar kalena dib loo bilaabo iyadoo khubarada qaar ay ku tilmaamayaan tilaabooyinka hadda ka taagan gobolka inaanay u muuqan xabad joojin la isku haleyn karayo. haddaba muxuu yahay waqtigan xaaladda dagaalka iyo waliba jihada gobolkaasi uu aadi karo? dhinaca kale haddii aan eegno war culus ayaa ka soo baxay maanta wasaaradda muraha dibadda ee wadanka Iran oo guud ahaantiiba ku saabsan xaaladda dagaalka iyo gobolka bariga dhexe. dhowr diyaaradood oo ah kuwa iswada ayaa la soo sheegaya inay soo rideen ciidamada nidaamka Israel iyadoo sidoo kale weerar diyaarado ah la sheegay inay la kulmeen dowladaha Jordan iyo waliba jamhuuriyadda Carbeed ee Ciraaq oo kamid ah meelaha sida weyn ee u qaraacaysa wadanka Iran. maalintii saddexaad dowladda Washington oo la soo warinaya kaydadkeedii gantaalaha istiraatiijiga ah ee difaaca iyo kuwa weerarka oo hoos u dhacay ayaa la soo sheegaya inaanay wax tallaabo ah ama weerar ah aysan ku qaadin gudaha wadankaasi Iran. xilli xiisad adag ay hadda ka taagan tahay gobolkaasi isla markaana wada hadalladii la filayay in dhinacyadu ay si dhaba u wajahaan la soo sheegaya mugdi iyo madmadow xoog leh in uu hadda ka soo muuqanayo. xiisadaha gobolka bariga dhexe ayaa u muuqanaya inay adag tahay iyadoo Israa'iilna wadnaha ay farta ku hayso. wasiirka amniga qowmiga ah kana mid ah ragga mayalka adag ee la shaqaysta ra'iisul wasaaraha nidaamka Israa'iil ninka la yiraahdo Itamar Ben-Gvir ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Trump uu yahay nin nugul oo jilicsan marka la joogo malafka nuclearka wadanka Iran uu yahay in kaliya lagu sameyn karo buu yiri in dowladda Iran weerar xoog leh lagu qaado. haddaba Israa'iil ma ku jeedi karaysaa weerar dowladda Iran iyo waliba Mareykanka mar kale in ay si weyn isku wajahaan xilli ra'iisul wasaaraha nidaamka gacan ku samayska ah ee Netanyahu la filayo toddobaadkan inuu la kulmo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo hadda ka maagay dagaalka iyo colaadda adag ee ka jirta gobolkaasi bariga dhexe gaar ahaan xiisadda wadankaasi Iran. akhirta nala socotay wararkaasi iyo waliba qubanayaal kale oo ku saabsan waxyaabaha ay qorayaan wargeysyada waaweyn iyo waliba falanqeeyaasha caalamiga ee ku saabsan dagaalkan ayaan ku faaqidayaa tabinteena maanta. fadlan meel kasta oo aad joogtaan ku soo biira YouTube-ka oo hilmaamina inaad subscribe saartaan isla markaana saaxiibadiina aad la wadaagtaan muuqaalkan. aad baad u mahadsantiin. waayahay inta aan falanqeynta aanan guda gelin saaxiibadii hore ee muuqaalada aragtidooda nala wadaagay muuqaalkii kan ka horeeya ayaan soo bandhigi doonaa oo halkan aan idinku sheegi doonaa. su-aasheena maantana waxay tahay Iran marka ay leedahay Mareykanka ma go'aaminayo weerarka iyo joojinta colaadda labadaba ma waxa ay ka dhigan tahay in ay markan dib u furayaan majaal iyo baal cusub oo dagaalka ah mase waxay doonayaan weerar cusub oo lagu qaado xulufada Mareykanka? haddaba su-aashaasi adigoo ka jawaabaya magacaada ku bilow iyo meesha aad joogto kadibna qaybta hoose ee faallada noogu qor. aan guda galo arrimaha taxliilka iyo waliba faaqidaada. maalintii saddexaad dowladda Washington wax tallaabo ah kama aysan qaadin wadanka Iran. tani waxay la xiriirtay markii qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay qatar galeen halka kuwa kalena la sheegay in kaydadkii difaaca iyo waliba gantaalaha ee wadankaasi
bariga dhexe yaallay ay u muuqdeen in ay sii baaba'ayaan. taliyaha sare ee ciidamada wadanka Mareykankana uu soo jeediyay duqeyntan in si looga maareeyo xilli Trump uu ka fakarayo dagaal weyn oo ballaaran oo galgeli karaya gobolkaasi bariga dhexe. haddaba hakintan ma waxa ay ka dhigan tahay in dagaalkii Trump uu doonayo markan inuu si dhameystiran uga baxo, mase waxa ay ka dhigan tahay in wadanka Iran uu dib isugu soo cagaduwanayo ilaa inta Trump uu hub ku filan keensanayo gobolka bariga dhexe si dowladdaasi jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran loo weeraro. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu hakiyo qorshe aad u ballaarnaa oo howlgal military ee ka dhanka ah wadanka Iran, iyadoo tani ay noqoto baa layidhi maalintii saddexaad oo xiriir ah oo kordhin karaysa weerarkan. sida uu sheegay wariyaha telefishinka Al Jazeera ee magaalada Washington ka soo waramaya, Trump ayaa 23 Luulyo qorsheynayay in la ballaariyo duqeymaha lagu hayo wadanka Iran, balse go'aankaasi ayuu dib uga laabtay kadib kulan uu la yeeshay golaha amniga qaranka ee wadankaasi Mareykanka, halkaas oo saraakiisha militarigu ay soo bandhigeen qiimeyn cusub oo ku saabsanay dagaalka, isla markaana muujisay xiisadan in aan si degdeg ah loo joojin karayn. qiimeyntaasi waxay muujisay in duqeymaha la fuliyo 15 maalmood ee la soo dhaafay ay beegsadeen inta badan bartilmaameedyo ay ku jireen liiska ciidamada Mareykanka, isla markaana ay ka hadleen baaliri oo kaliya tiro kooban oo kaliya oo aan weli la beegsan. wararka laga helayo tilmaamaha ilaa xogtaasi militariga ayaa sababtay in Trump uu dib uga noqday qorshihii ballaarnaa ee ku saabsan weerarada, maadaama saraakiishu ay u arkayeen in badan ujeedooyinka howlgalkaasi. ilaa iyo hadda aqalka cas si rasmi ah ugama uusan hadlin baaliri waxa la xiriira joojinta dagaaladaasi iyo waliba xalka laga gaari karayo. sida xalay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu ku soo bandhigay bartiisa Truth Social, waxa uu soo bandhigay muuqaal lagu sameeyay garaadka gacan ku samayska kaas oo ay ka muuqanaysay jasiiradda Qaraq oo ah isha halbowlaha dhaqaalaha wadankaasi Iran oo diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay gubayaan. fariintan ayay qaar ka mid ah saaka warbaahinta dunidu si weyn u falanqeynayaan, taas oo macnaheedu yahay Trump inuu leeyahay waan u dhakanayaa wadanka Iran, aniga ayaana doonaya mustaqbalka dagaal dhameystiran in aan ku sameeyo. wasiirka mayalka adag ee amniga gudaha u qaabilsan nidaamka gacan ku samayska ah ee Israel Itamar Ben-Gvir ayaa waxa uu soo jeediyay in Trump uu yahay nin nugul marka laga hadlayo xiisadda iyo xaaladda dagaalka ee wadanka Iran. marka la joogo buu yiri arrimaha nuclear-ka wadanka Iran waxa kaliya ee la doonayo waxay tahay in dowladdaasi si weyn loo garaaco oo meesha laga saaro hogaamiyaasha mayalka adag, waa sida uu doodiisa u dhigay. hadalka Ben-Gvir waxa uu ku soo aadayaa oo maanta warbaahintu ay falanqeynayaan xilli ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay saaxiib iyo olog yihiinba in uu dhawaan la kulmo madaxweynaha wadanka Mareykanka. wasiirka amniga qaranka nidaamka Israa'iiliyiinta Itamar Ben-Gvir ayaa si kulul u dhaliilay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, isagoo ku tilmaamay in uu fudud yahay sida uu ula tacaalayo arrinta wadankaasi Iran. Ben-Gvir ayaa sheegay in Trump uusan ku guuleysan doonin wadaxaajoodka ama tanaasul la gala wadanka Iran, isagoo ku dooday in Iran lagu wajahayo oo kaliya awood ciidan iyo hub dhameystiran, waa sida uu dooda u dhigay. Trump waa qof ku fudud buu yiri arrinta Iran. Iraniyiintu waxaa lala macaamili karaa oo kaliya in xoog iyo hub loo adeegsado. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay jiraan warar sheegaya in Trump uu hakiyo qorshaha ballaaran ee howlgalka militariga ahaa uu ka damacsanaa wadanka Iran in uu feeraha kaga jabiyo. hadalkan Ben-Gvir waxa uu muujinayaa kala duwanaanshiyaha aragtida qaar ka mid ah madaxda Israel iyo maamulka Trump ay jeedinayaan. dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran, gaar ahaan wasaaradda amuraha dibadda, ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in taageerayaasha wadanka Ukraine ay wajihi doonaan ciqaab adag oo
maraakiibteeda lagu qaadi doono saacadaha soo socda kuwaasi oo dowladda Iiraan ay u dhakarayso samarkaana qorshaha go'aaminta mar horeba la meelmariyay iyadoo dowladda Iiraan ay xalay ku dhawaaqday sidoo kale in ay bixinayso jawaab argosiya wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iiraan wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iiraan aan ilaahday ayaa sheegtay in dalalka ay isku aragtida yihiin taageerayana Ukraine inay ka qaadan doonaan baaliiri cawaaqibka ka dhasha weerarka lagu qaaday markabkii ay lahayd wadanka Iiraan ee lagu beegsaday isagoo maraya badda Qasweyn ee u dhaxaysa wadamada Ruushka iyo wadankaasi Iiraan afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iiraan Ismaaciil Baqai ayaa sheegay in weerarka Ukraine ay ku qaaday markabka Iiraan uu ahaa tallaabo halis ah oo qatarteeda leh isagoo carabka ku adkeeyay in dhacdadaasi aanay jawaab la'aan ku dhamaan doonin oo dowladda Iiraan ay bixin doonto jawaab u dhiganta waxa maraakiibteeda lagu sameeyay markabkaasi la weeraray ayaa la sheegay in dalka Ruushka uu ka soo shareecday isla markaana weerarka Ukraine ay ku qaaday uu ku geeriyooday mid ka mid ah badmaaxyadii saarnaa markabkaasi oo Iiraani ah cid kasta oo taageerta Ukraine waa in ay diyaar u noqoto cawaaqibka ka dhalan karaya weerarkan waxaana dhacay baa layiri falal halis ah mana ahan doona jawaab la'aan in laga bixiyo ayuu Baqai hadalkiisa ku yiri isla wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iiraan ayaa jawaab adkafaar leh u dirtay wadanka Mareykanka kadib markii ay tilmaameen inaysan aqbali karayn waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Iiraan in Mareykanka uu noqdo cidda go'aaminaysa dagaalada ka aloosan gobolka Bariga Dhexe in marna uu furo marna uu dagaaladaasi joojiyo hasaatee wixii hadda ka dambeeya ay noqonayaan jawaabaha kuwa isku mid ah oo Iiraan ay noqonaysa cidda dhigaysa taariikhaha dagaalkaasi iyo waliba jihooyinka ay aadi karayaan wasaaradda qaarijiga ah ee wadanka Iiraan ayaa sheegtay in xaaladda hadda ka jirta dagaalka aan lagu tilmaami karayn xabad joojin rasmi ah iyadoo beenisa wararka sheegaya in Iiraan iyo Mareykanku ay ku heshiiyeen xabad joojin soconaysa muddo 10 maalmood ah wasaaraddu waxay sheegtay in joogista howlgallada militariga uusan la macno ahayn xabad joojin isla markaana aysan si adag uga jawaabi doonto haddii Mareykanka uu ku qaado baa layiri weerar culus qodobada ugu muhiimsan ee bayaanka wadanka Iiraan gaar ahaan wasaaradda amuraha dibadda ay sii daysa maantana waxaa ka mid ah xaaladda hadda jirto laguma tilmaami karo bay yiraahdeen xabad joojin rasmi ah joogsiga dagaalka ma ah xabad joojin waxaana la sheegayaa in weerar kasta oo Mareykanka uu qaado laga bixin doono jawaab ku filan wararku waxay sheegayaan in Iiraan iyo Mareykanku ay ku heshiiyeen xabad joojin 10 maalmood ah kuwaasi oo aan sal iyo raad lahayn bay yiraahdeen oo dowladda Iiraan ay gaashaanka u daruurtay warkaasi inuu sax yahay waxa ay sidoo kale sheegeen baaliri xiritaanka safaaradaha dalalka Yurub ee Iiraan in lagu tilmaamay dagaal nafsi ah oo ay Washington wado iyadoo Iiraan sheegtay in dhacdooyinka ka dhacay maraakiibta dhowr oo ku sugnaa marinka Hormuz loo adeegsaday marmarsiyo oo Mareykanku ku bilaabayo wareeg cusub oo xiisad militari ahayd taasoo dowladda Iiraan ba ay xilli hore si fahansanayd wasaaraddu waxay intaas ku dartay in dhinacyo badan oo doonaya in xiisadda la dejiyo ay soo jeediyeen hindisayaal lagu xalinayo arrintan Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay in maalmihii la soo dhaafay ee wada hadallo la lahayd dowladaha Cumaan isla markaana ay ku howlan tahay samaynta hanaan midnimo iyo nidaamyo isu socodka maraakiibta halkaasi isticmaalaysa bayaankan ayaa imanaya xilli wali ay taagan tahay xiisadda gobolka Bariga Dhexe haddaba maxay tahay fariinta Iiraan ay ku doonayso inay ku gudbiso markii ay dib u celisay qaar ka mid ah maraakiibta la sheegay in ay weedaarteen awaamirtii ka soo baxaysa dowladdaasi Iiraan xeerarka la jabiyana maxaa laga yaqaanaa marka la fiiriyo loolanka Hormuz marinkan istiraatiijiga ah ee isku xira tamarta adduunka ee 20% ee halkaasi maraan iyo dowladaha shidaalka soo saara ayaa waxa uu iminka u muuqanaya Iiraan inay u adeegsanayso sidii hub nuclear oo kale oo dunida ay ku qarxinayso cilmi baare ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo la yiraahdo Muxsin Faqani ayaa falanqeeyay
sababta Iiraan ay u adkaysanayso in dib loo celiyo maraakiibta isku dayaya in ay ka gudbaan marinka Hormuz iyagoo adeegsanaya marino aysan dowladda Iiraan aqoonsanayn. Fakhani ayaa sheegay in tallaabadan ay timid xilli ay jiraan warar sheegaya jawi wanaagsan iyo natiijo dhiirigelinaysa oo ka soo baxaysa dhexdhexaadinta ay wadaan boqortooyada ama saldanada Ammaan. Si kastaba ha ahaatee waxa uu xusay in go'aanka Iiraan uusan qasab ahayn, muujinaya adayg siyaasadeed sida ay hadalka u dhigayaan. Sida uu tilmaamaya taxliiliyahan iyo cilmi baarahan Carbeed, Tehran waxa ay doonaysaa in ay dirto fariin cad oo ah in maraakiibta isticmaalaysa marinka Hormuz ay ku qasban yihiin inay raacaan xeerar iyo wadiiqooyin rasmi ah oo dowladda Iiraan ay hore u jeedisay intii dagaalkan lagu guda jiray, iyadoo Iiraan isku dayaysa inay dejiso nidaam cusub oo lagu maamulayo isu socodka maraakiibta sida uu hadalkiisa u dhigay. Waxa intaasi ku daray in Iiraan ay isku dayayso in ay xaqiijiso heshiis kasta oo maraakiibta lagu gaarayo xaaladda gobolka ee ku salaysan ixtiraamka xeerarka cusub ee hagaya baa layidhi marinbiyoodkan, halka ay noqon lahayd oo kaliya tallaabo military ama cadaadis siyaasadeed oo waaweyn. Falanqayntan ayaa muujinaysa in Tehran ay isku dayayso in ay dirto cadaadis diblomaasiyadeed oo weyn oo adag oo aan saameynin baa layidhi in colaaddu ay noqoto mid aad u adag oo weliba saameynteedu ay aad u ballaaran tahay. ciidanka nidaamka Israa'iil ayaa ku waramaya inay soo rideen 2 diyaaradood oo ah kuwa iswada oo xilli ay ku soo dhaceen baa layidhi ama ay ku soo wajahnaayeen xuduudda dhulka Falastiiniyiinta ee gacanta nidaamkaasi ku jira iyo dowladda Carbeed ee Jordan oo ka mid ah wadamadii sida weyn ay u garaaceen ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay soo rideen 2 diyaaradood oo aan duuliye lahayn, kuwaasi oo lagu arkay agaarka xadka u dhaxeeya Israa'iil iyo Urdun. bayaan uu soo saaray militariga nidaamku waxaa lagu sheegay in 2 diyaaradood oo la ogaado xilli ay ku sugnaayeen ama ay soo galayeen aagga xuduudda isla markaana la qabtay ka hor intaanay soo galin hawada nidaamka Israa'iil. ciidamadan ayaa sheegay in 2 diyaaradoodba aysan soo galin dhulka nidaamka isla markaana ay ku socdaan baa layidhi baaritaano lagu ogaanayo halka laga soo diray iyo cidda adeegsatay waa sida ay leeyihiin. sidoo kale militarigu waxa uu sheegay in aan la shidin seerida digniinta maadaama dhacdada aysan waafaqsanayn shuruudaha lagu kiciyo arrimaha la xiriira digniinta degdega ee dadka looga digayo in dhulkaasi uu wajahayo xaalad dagaal. sida ay ku warameen ciidamada ilaalada maxalliga ah ee loo yaqaan jabhadda gudaha. ilaa waqtiga warbixinta la diyaarinayay dowladda Urdun kama aysan hadlin bayaankan ay soo saareen ciidamada Israa'iil. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisadda gobolka Bariga Dhexe ay weli sare u sii kacayso isla markaana ay jiraan walaacyo laga qabo weerar loo adeegsan karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka Bariga Dhexe ka taagan. baarlamaanka wadanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan waxa ay soo saareen jawaab dhamac ah oo ku socota dowladda Ukraine ee hadda siisiitanka ah isla markaana la dagaalamaysa wadankaasi Ruushka. arrinta baarlamaanka maanta uu ka fariistay waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday markabkii maraya badda Qasweyn ee dowladda Iiraan ay lahayd oo Kiev ay ku dhawaaqeen inay weerar ku qaadeen sida ay hadalka u dhigeen. gudoomiyaha guddiga amniga qaranka ee golaha baarlamaanka ee shuurada loo yaqaan ee wadanka Iiraan Dr. Ibrahim Azizi ayaa digniin adag u diray dalkaasi Ukraine isagoo sheegay in weerar kasta oo lagu qaado Iiraan uu yeelan doono cawaaqib isla markaana ay Tehran aysan ka aamusi doonin wax tallaabo ah oo ka dhana wadankeeda sida ay hadalka u dhigeen. qoraal uu isniintii baahiyay bartiisa X-na ku soo dhigay ayuu Azizi ku sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay si wanaagsan u garanayaan weerar kasta oo lagu qaado Iiraan inuu leeyahay qiimo lagu bixiyo oo dowladda Iiraan ay ka jawaabi doonto sida ugu adag. waxay u badan tahay in Ukraine ay dhawaan ogaan doonto buu yiri in Iiraan aysan ka tagi doonin wax tallaabo ah oo lagu qaado dalkeeda isla markaana ay ka bixin doonaan jawaab aad u xooggan. sidoo kale waxa uu sheegay liiska dadka iyo waliba
dalalka sida qaldan u qiyaasay awoodda iyo go'aan qaadashada wadanka Iran inay noqonayaan kuwa sii kordhaya. hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha wadanka Ukraine ee dagaalka adag wajahaya Volodymyr Zelensky uu sabtidii sheegay in ciidamada wadanka Ukraine ay beegsadeen maraakiib lagu tuhunsanaa in ay sideen shaxnada military oo xiriir la leh Iran iyo sidoo kale markab dagaal kuwaasi oo ku sugnaa buu yiri badda Caspian. dhinaca kale wasaaradda amuraha dibadda ee Iran ayaa cambaaraysay weerarkan waxaana ay ku sheegeen in Ukraine ay ku qaadeen markab ganacsi oo laga leeyahay Iran oo maraya baddaasi iyadoo sheegtay in weerarka uu sababay dhimashada mid ka mid ah badmaaxyada dowladdaasi Iran ee saarnaa markabka la weeraray. hadalkan ayaa muujinaya iyadoo ay sii kordhayaan xiisadda Iran iyo Ukraine isla markaana Tehran ay mar kale ku celisay weerar kasta oo lagu qaado wadankeeda in uusan noqonayn mid aan jawaab lahayn. khiyaarta ay nala socotay haddii aan markan eego wararka saaxiibada jawaabaha ka soo bixiya muuqaalkeenii hore intii aan u guda gelin inaan idin xasuusiyo jawaabta muuqaalkan taas oo ku saabsanayd su-aashii hore ee barnaamijkii aynu soo dhaafinaynu ku baahinay Iran jawaab noocee ah ayay ka bixin doontaa weerarka dowladda Ukraine ay ku qaadeen maraakiibteeda. qaar ka mid ah saaxiibada ku xiran barnaamijkan ayaa haddaba sidan soo qoray. daawadaha ugu horeeya waxa uu leeyahay magacaygu waa Axmed jooga gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Iran sidan ka baranay waayahan dambe balanteedu way fulisaa si toos ah iyo si dadbanba labadaba haddaysan wax isbedelin buu leeyahay. Iran ayuu leeyahay fulitaankeeda banaanka ayuu iman doonaa. daawadaha labaad waxa uu leeyahay waa Liban Shariif oo jooga Muqdisho. Ruushka iyo waliba Iran iskaashi adag ayaa hadda ka dhaxeeya mid kasi adag ayay yeelan doonaan. midda kale ee aan ku darayo waxa la rabaa buu yiri in ay Iran weerarto Ukraine dib Yurub toos u galaan buu yiri dagaalka bariga dhexe. waan ku salaamay baro ninka Yurub uu qalqaalinayaa dagaalkeeda ku soo biirto. daawadahan kale waxa uu leeyahay waa Nuur Guuleed oo jooga dalka South Africa. dagaalka Iran waa cashar weyn oo wax laga baran karo sida uu leeyahay. kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah saaxiibadii ka soo falceliyay su-aashii barnaamijkii hore aynu ku faaqadaynay. su-aasha maanta taaganna waxay tahay sida aad maqlayseen dowladda Iran waxay tiri Mareykanku ma noqonayo markii uu doonanayo inuu dagaalka bilaabo markii uu rabana si iskiisa u joojiyo. wixii hadda ka dambeeya qorshaha Iran ayaa la wareegi doonta ay yiraahdeen sida bayaanka wasaaradda amuraha dibadda ee Iran ka soo baxay maanta oo Isniina. haddaba jawaabta ama falka dowladda Iran ka soo socda maxaa lagu macnayn karaa? ku bilow magacaada iyo meesha aad joogto kadibna aragtidaada si wanaagsan oo la fahmi karo u qor. aad baad u mahadsantihiin khiyaarta nala socota. halmaamina muuqaalkan inaad like saartaan YouTube-ka aad subscribe saartaan sidoo kalena aad share garaysaan muuqaalkan. aad baad u mahadsantihiin. soo dhawaada.